ismaqal wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal warka halku dhig news qodobada ku daawan doontaana waxa kamid ah Mareykanka oo soo saaray fariin culus oo ku wajahan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada wasiir janan oo ciidamo badan la yimid dawladka balada Xaawo iyo shacabkii gobolkaas oo bilaabay banaanbaxyo fara badan oo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya wariyihii gaarka ahaa madaxweynaha Puntland oo xabsiga loo taxaabay Ahmed Madoobe dawladda Kenya ka dalbaday in janan ay ka difaacdo ciidamada dawladda isku bahaysan iyo gobolka Gedo xukuumadda Soomaaliya oo amar ku soo rogtay garoomada diyaaradaha dalka ku yaala iyo Suudaan iyo Israa'iil oo heshiis gaaray haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 6 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal dawladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jira inay dib u soo cusboonaysiiyaan wada shaqayntoodii iyo waliba iskaashiga wadamada gobolka iyo beesha caalamka qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in wada shaqayntaasi ay horseedi karto in laga guuleysto al-shabaab oo dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dagaal kula jirto isla markaana horumar iyo barwaaqo shacabka Soomaaliyeed ay gaaraan Mareykanka wuxuu sii wadayaa dadaalada ku aadan dhinacyada dawladda Soomaaliya ee dhammaan dawlad goboleedyada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Mareykanka ayaa mar kale ku cadeeyay qoraalku soo saaray inuu aqoonsan yahay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Kaariye Qorqor dawladda Mareykanka waxay sheegtay sidoo kale inay ka go'an tahay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay ka taageerto dadaalada ay ku dhisanayaan hay'adaha dawliga ah ee ka shaqeynaya baahidooda Mareykanka ayaa dhinaca kale ugu baaqay dawladda dhexe dawlad goboleedyada baarlamaanka iyo dhammaan saamiilayda siyaasadda Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan aas-aasidda amniga si loo xoojiyo doorashooyin la isku haleyn karo oo ka dhaca Soomaaliya marka la gaaro dabayaaqada sanadka soo socda 2021 warka ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa ku soo aadaya xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya qaar ka mid ah dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya maalmihii u dambeeyay waxaa khilaaf baan u dhaxeeyay maamulada isgarabsanaya Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya markaana gobolka Gedo Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland oo baxsad ka ah dawladda Soomaaliya maalmo ka horna gaaray gobolka Gedo gaar ahaan magaalada balada Xaawo dibna uga laabtay daqiiqado ku sugnaa isagoo aaday dhanka Mandheere Kenya ayaa wararku waxay sheegayaan in ilaa xalay ku sugnaa xadka ay iska galaan labada magaalo Mandheere iyo balada Xaawo gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Bibi dadka yaqaana deegaankan ayaa sheegaya inuu qiyaas ahaan ay isku jiraan balada Xaawo iyo deegaankan Bibi uu Janan ku sugan yahay 500 mitir Cabdirashiid Janan ayaa wararku waxay sheegayaan dawladda Kenya ay u diiday inuu ku laabto gudaha dalkeeda kadib warbixino ka soo kala baxay Amnesty International iyo dawladda Soomaaliya oo lagu dalbanayay in Kenya ay dib ugu celiso gacanta dawladda Janan oo baxsad ka ah taasina ay ku qasabtay inuu halkaasi ciidamo ku aruursado haddaba wararkan saaki aan ka helayna balada Xaawo ayaa tibaaxaya in ugu yaraan 20 askari oo wata laba gaari oo tiknika ah ay ka soo goosteen dhanka Janan una yimaadeen ciidamada dawladda ee ku sugan gudaha magaalada balada Xaawo dhanka kale warar ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in saraakiisha ciidamada dawladda oo ka baaqsanaya inay weerar ku qaadaan Cabdirashiid Janan inay la xiriireen odayaal dhaqameed ku heeba isla markaana ku wargeliyeen in hab nabadgelyo ah uu iskugu soo dhiibay ciidamada dawladda intuusan imaanin dagaal toos ah lagu qaado 31 Agoosto ayaa Janan waxaa laga qabtay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan isagoo transit ku ahaa waxaana uu xabsi uu ugu xirnaa dawladda muddo 5 bil ah uu ka baxsaday bishii aan soo dhaafnay 28keeda waxaana muddo la laasanaa halka uu jaandhiga Kismaayo gaaray 31 bishii aan soo dhaafnay Cabdirashiid Janan ayaa ku eedeysan dambiye dagaal iyo in uu laayay dad shacaba dhanka kale dad shacaba oo xalay iskugu soo baxay degmooyinka Doolow Luuq iyo balada Xaawo ayaa soo dhaweeyay ciidamada dawladda Soomaaliya dadkan ayaa erayo ka dhan ah Jubbaland ku dhawaaqay iyagoo soo dhaweynaya ciidamada dawladda maalmahan ku daabuleysay degmooyinka Luuq Doolow iyo balada Xaawo dhanka kale maamulka balada Xaawo ayaa war ka soo saaray xaaladda Cabdirashiid Janan iyo ciidamada dawladda ee halkaas gaaray maamulka degmada balada Xaawo ee gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa ka hadlay ciidamada dawladda Soomaaliya ee la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi ciidamada dawladda ayaa halkaas gaaray isla markaana la wareegay saacado kadib markii uu magaaladaasi soo galay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan kaasoo markii dambe ka baxay magaalada una gudbay magaalada Mandheere ee waqooyi bari Kenya gudoomiyaha degmada balada Xaawo ee dhanka dawladda
oo magaaladaas kaga soo cararay markii uu gaaray Cabdirashiid Janan laguna magacaabay Cabdicasiis Xareed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin soo dhaweynayaan ciidamada dawladda halkaas gaaray. Cabdicasiis ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in qorshaha ciidamada dawladda ay ku galeen Beled Xaawo qayb ka ahaa heshiis horay u dhexmaray maamulka Beled Xaawo iyo dawladda Soomaaliya. Cabdicasiis ma uusan faahfaahin waxa uu yahay heshiiskaasi, hase yeeshee dawladda ayaa horay inta badan maamulka gobolka Gado uga dhaadhicisay inay ka goostaan Axmed Madoobe oo ay hoos tagaan dawladda dhexe. Maalinka hore war ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba gobolka Gado uu gacanteeda ka baxay dawladda Soomaaliyana u galay. Doorkii maalmood ee aan soo dhaafnay dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa danab waxay ku daabuleysay gobolka, waxaana la sheegayaa in ciidamada ay ka golleeyihiin in ay weerar ku qaadaan magaalada Kismaayo. wariyihii gaarka ahaa ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini ayaa lagu xiray xalay Garowe. wariye Cumar Maxamed Soomane oo dhawaan ku biiray howlwadeenada madaxtooyada Puntland ayaa xalay lagu xiray magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland. Soomane ayaa ahaa wariyaha gaarka ah ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini wuxuuna shaqo bilaabay bartamihii bishii dhamaatay Janaayo. Cumar Soomane ayaa sidoo kale ka tirsanaa shaqaalaha idaacadda Kulmiye, waxaana la sheegay in wariyaha loo haysto 2 war oo ka baxay idaacadaas kuwaas oo isagu ka diray Garowe. wariyaha ayaa shaqada madaxtooyada laga ruqseeyay habeen ka hor, waxaana laga xiray maqaaxi ku taala gudaha magaalada Garowe xilli uu la fadhiyay wariyaal kale. labada warbixin ee loo haysto wariyahaas ayaa kala ah mid ku saabsaneed ciidamada Somaliland oo kuwa Puntland kala wareegay gacan ku haynta deegaanka Boocame ee gobolka Sool, taasoo maalmo ka hor ka baxday idaacadda, iyo war ku saabsaneed arday reer Puntland ah oo Muqdisho u aaday inay galaan imtixaanka dawladda federaalka si sahal loo siiyo. Puntland wali wax war ah kama soo saarin xariga wariye Cumar Maxamed Soomane xalay lagu geystay magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socotay.